khudbadii sheekhu halkaa inooga akhriyey waxay mudnayd in lagu qoro wax ka qaalisan dahab iyo dheeman iyo lu'lu iyo marjaan iyo narxaanta nafiiska oo dhan waxaana ilaahay ka baryaynaa cirka markuu u yimaado dhulka markuu ku doojiyo oo dooggu uga soo bixiyo in qulubteenna ilaahay ku doojiyo waxay daareen khudbadaasi 3 arrimood أهمية أي نبتقلية لهذا فوالله العظيم أكسجين تباهد النوقمنا وحكبر أنت نبتقلية أي نوقمنا محايا لهال قفوة إلى قمد هدي أكسجين توايو كليجي أي نقتقية لكن نبتقلية هدين وينو لما أنت وينو تغينا وينو نعيب ما يسرينا نبتقلية وحيوبا أنت ولالك يا مسلم كاو أول الأدب النفط هذا نبتقلي ولالك نبتقلي درس كنبتقلي dadkana farin la isnabadgeliyo maxaa yeelay diintu waxay noogu yeeraysaa koow nabadgelyo aakhira marka la tago sheekhu waa tudusheena ku akhriyay jannada laftigeeda nabadgelyo laga baahan yahay idkhuluha bisalaam dalika yawmul khulud gaajada cudurka horumar la'aanta dib u dhaca iyo dadku aan degin intaba waxa keenay nabadgelyo la'aan